shirkadda Dahabshiil ayaa maanta wasaaradda caafimaadka Somaliland waxay ku wareejisay laba gaari oo kuwa gurmadka degdega ee caafimaadka. Labadaasi gaari ayay wasaaradda caafimaadkuna u qorshaysay magaalooyinka Laascaanood iyo Boorama. Sidoo kale shirkadda Dahabshiil waxay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka 7 mashiin oo nooca oxygen-ta. lacagta qalabkan la soo siiyay ayaa qiimaheedu waxa uu dhan yahay 174,000 oo dollarka Mareykanka waxaana ay qayb ka tahay lacagtii ay shirkadda Dahabshiil kaga qayb qaadanaysay gurmadka cudurka COVID-19. Fuad Ahmed Nuux madaxa hawlgelinta ee shirkadda Dahabshiil ayaa kaalmadaasi ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka. waxa maanta farxad noo ah iyo sharaf inaan bartan ku wareejinayno dafcadii labaad deeqdii shirkadda ugu deeqday kahortagga xanuunka COVID-19 oo shirkadda ay ku deeqday lacag dhan 800,000 oo dollar oo isugu jirtay lacag cadaan ah iyo lacag qalaba. maanta waxaan wareejinaynaa dafcadii labaad ee qalabka oo ka kooban 9 item oo isugu jira 2 ambulance oo noocoodu yahay 2020 Toyota Hardtop. sidoo kale waxaan wareejinaynaa 7 mashiin oo ah oxygen concentrators oo ay 5 xabba yihiin kuwa waaweyn, hal xabbana ay tahay kuwa dhexe, xabbadina ay tahay kuwa yar. qalabkan oo aan ugu talagalnay in laga hawlgalo baahida iyo duruufaha uu keenay xanuunka COVID-19 gobolada Somaliland. sidoo kale waxay shirkaddu wax ka qabataa jaamacadaha oo aan wax ku darsano gobolada Somaliland oo dhan iyo dhulka Soomaaliya degto oo dhan oo aan mid walba ugu deeqno wixii marba ay baahidooda tahay. waxaan rajaynayaa inay tan noqon doonto mid sii socota maadaama shirkadda qiyamkeeda iyo ku talagalkeedu yahay inay mar walba ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ay wixii ay ka faa'iiday ay wax ku celiso, wixii ay ka faa'iiday wixii meel kale ka faa'iiday inay wax ku soo celiso oo ay la wadaagto. sidoo kale waxaanu halkan ku sheegaynaa dufcaddii ugu dambeysay ee deeqdan qalabka COVID-19 oo iyagana aan wareejin doono bisha soo socota haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynayaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka mudane Mahdi Cismaan Buuri inuu igala wareegi doono qalabkaasi ay shirkadda Dahabshiil Group ugu deeqday oo aan maasantii dhamaantiin. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Mahdi Cismaan Buuri iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa iyaguna shirkadda Dahabshiil waxay uga mahad celiyeen kaalmadan muhiimka ee ay ku wareejiyeen iyo reerayn iyo qadarin weyn nooca inaanu kala wareegno Dahabshiil 2 ambulance oo aan noocii ugu dambeeyay iyo 7 mashiin oo ah kuwa oxygen-ka kuwanoo loogu talagalay ambalaasyada Boorama iyo Laascaanood oo ay baahiyo badani ka jiraan oo maxay ahayd dhulkooduna ballaaran yahay si loogu gaadho aqal oo caafimaad sugan oo caafimaad tayo leh loogu gudbiyo shicibka dhulka degan. sababtu waxay tahay in Boorama waxay ka dab qaadaa ilaa maxay ahayd xadka aynu leenahay Djibouti, nimanka kalena waxay ka dab qaadaan ilaa xadka aynu leenahay Soomaaliya. sidaa daraaddeed yacni baahiyaha wasaaraddu ayada og, ayadaana meeshii u daran og, ayadaana geenaysa meeshii looga baahan yahay. waxaan uga mahadnaqaynaa isku dareenka nahay iyo naxdinta ay ka naxayaan maxay Dahabshiil shicibkooda. maaha maanta waxa weeyaan gawaadhaynu leenahay, isgaarsiin baynu leenahay. waxa jirtay mar Dahabshiil intuba aanay jirin oo uu jalka la daba taagnaa shicibka Soomaaliya oo dhan, khaas ahaan Somaliland. anigu waxaan xasuustaa mar aanu lacag soo diro oo lacagta foonay loogu yeedho dadka qabiil baa lagu soo diri jiray bariga lacagta si uu ruuxa u gaadho, ruuxa mii jooga, ruuxa hawd jooga, ruuxa magaalo jooga bartiisa inta lacag laga siiyo loogu dhiibi jiray oo la oran jiray hebel baa idin soo diray hooya. kolka waa arrin aad iyo aad u adkaabo ahaa bariga jalkay daba waday maxay ahayd dadkii qaxay, waana mid lagu farxo. ducadiina dawaataa maanta halka aad ogtiin soo gaadhay. shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba goobahooda shaqo ay eheladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab.